Soomaaliya waxa ay soo bandhigtay dhacdo aad u weyn oo kubadda cagta ku saabsan. Waxaa Muqdisho lagu qabtay tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Tani ma aha markii ugu horeysay, laakiin waa markii ay ugu xiisaha iyo xamaasadda badnayd. Markii ugu horeysay kooxaha ayaa ku ciyaaray labis iyo agab tayadii ugu sareysay leh oo ay soo saartay shirkad waddanka laga leeyahay A to Z Sports House. Hoyga agabka iyo labiska ciyaaraha dalka, xitaa garsoorayaasha, calan wadayaasha, xeer ilaaliyaasha, tababarayaasha iyo taageerayaasha qaarkood, wax kasta oo ciyaaraha gudaha ku saabsan. A to Z Sports House ayaa qurxisay tayadoodana ilaalisay.